barnaamijkan waxaanu ku soo qaadan doonaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku tagay dalkaasi Qatar. Haddaba Soomaaliland maxay ka faa'iidi kartaa dalka Qatar? Waa markii ugu horeysay ee taariikhda 34 sano uu dalka jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanida kala soo noqday Soomaaliya. Waa markii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda uu safar shaqo ku tago dalka Qatar. shan madaxweyne oo xilalka ugu horeeyay madaxweynaha hadda talada haya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro midkoodna safar kuma tagin dalkaasi Qatar. hase yeeshee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa taariikhda u galay in uu noqdo hogaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliland ka socda ee booqda dalkaasi Qatar. dalka Qatar waa dal ka mid ah wadamada khaliijka Carabta, waana dal yar oo qani ah, haddana saameyn weyn ku leh siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha dunida. waxaanu saaxiib weyn leeyahay dalalka Islaamka iyo wadamada reer galbeedka ee uu Mareykanku hormuudka u yahay. haddaba Soomaaliland maxaa uga soo kordhi kara safarka taariikhiga ah ee madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalkaasi Qatar maanta oo uu ka dhufay garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa?